assalaamu calaykum daawadayaal hawada sare ee fog maanta waxaan idiin soo gudbinayaa xaqaa'iq iyo macluumaad xiise leh oo ku saabsan hawada sare. weynida iyo baaxadda kownkani ma aha mid caqliga ibni aadamka geli karta. si aynu u helno goob aynu ka duulno waxaynu ku bilaabi doonnaa meerahan cajiibkaa. meeraha meerkuri soomaaliduna u taqaana dusaa, halka luuqadda carabida loogu yeedho cudaar. waa meeraha ugu dheereeya wareegga qorraxda solar system. waxa uu ka samaysan yahay meerahani dhagxaan iyo macdan. midabkiisu waa dameeri. waa meeraha qorraxda ugu dhow, waana meeraha ugu yar 8 meere ee jira. markii hore waxay ahaayeen 9 meere, balse meeraha libdho loona yaqaano Pluto ayaa laga saaray markii uu buuxin waayay shuruudihii meeranimo. sanadka dusaa ama meerkuri sideedaba in sanad dhasho waxa ay ku xidhan tahay hadba meero kasta inta uu qorraxda ku wareego oo uu halkii uu ka tegey uu ku soo laabanayo. tusaale, dhulku qorraxda waa uu ku wareegaa, waxaanay ku qaadataa inuu halkii uu ka kacay uu ku soo laabto 365 cisho. markaa ayaa sanad la yidhaahdaa. wareegga dhulku uu sameeyey ayaanu sanadku ka dhashaa. sidaa daraaddeed dusaaga ama meerkurigu inuu qorraxda ku soo wareego waxay ku qaadataa 88 cisho oo keliya. sanadkiisuna sidaas ayuu ku yimaadaa oo uu dhaqso badan yahay, waana 3 bilood ku dhowaad oo tirsiga dhulka ah. balse dusaaga maalintiisa ayaa dheer, waana 58 cisho oo dhulka ah. taasi waxa ay ka dhigan tahay sanadkiisu inta badan waa maalin, sababtuna waa qorraxda uu ku dhow yahay ayaa badanaa haysta markuu wareegayo. saacadaha maalintiisa keliya ayaa ah 1408 saacadood, halka dhulka saacadiisu ay yihiin 24 saacadood. balse habeenka dusaagu waa uu ka yar yahay maalintiisa oo waa 44 cisho oo dhulka ah. xajmiga ama baaxadda meerkuriga waa meeraha ugu yar 8 meere seen hore u soo sheegnay. marka dayaxa la barbar dhigo wax yar ayuu ka wen yahay meerkurigu. baaxadda dusaagu waxa ay leeg tahay 1/3 oo dhulka ah, oo macnaheedu yahay marka dhulka 3 meelood loo qaybiyo 1 meel ayuu leegyahay meerkurigu. u dhowaanshiyaha meerkuriga uu qorraxda u dhow yahay ayaa aad u adkeeyey in macluumaad laga helo, balse waxaa jira dayax gacmeed loo diray si xog looga helo. 1974kii waxaa loo diray dayax gacmeed loogu magac daray Mariner 10, kaasoo dushiisa ku sameeyey baadhis iyo gaafureeg iyo indhaindhayn dheeriya. waana meeraha leh godadka ugu badan wareegga qorraxda. haddaad joogi lahayd dusha sare ee dusaaga, qorraxda waxay u ekaan lahayd ku dhowaad 3 jeer say u eg tahay marka dhulka la joogo. sababtuna waa maadaama uu u dhow yahay qorraxda. haddana qorraxda uu u dhow yahay waxa uu jiraa 58 milyan oo kilomitir. heerkulka dusaaga ama meerkuriga. heerkulka dusaaga aad buu u kulul yahay maadaama uu qorraxda ka ag dhow yahay. taasi waxay sababtay in heerkulka maalintu dhinaca ay qorraxdu haysaa gaadho ilaa 700 oo digrii, waana heer xataa birta dhalaalin kara. halka dhinaca qorraxda ka sii jeedaa uu gaadhayo -170 digrii oo baraf ah. inuu marna sidaa u shidhnaado kuliil dartii, marna qabow aanay ka dhaco waxaa sabab u ah dusaagu ma laha dabool ama gibil atmosfeer qorraxda ka difaaca, halka dhulku uu leeyahay difaac ilaahay u sameeyey oo dabiici ah. cajiib amuur ilaahay. meeraha meerkuriga ama dusaagu ma laha wax xilliya ah sida guud, jiilaal, dayr iyo wixii la mid ah. xilliyada waxaa sababa leexashada dhidibka marka loo eego wareegga meeraha. maadaama dhidibka dusaagu uu si toosa ugu beegan yahay dhaqdhaqaaqiisa aan janjeerin, ma laha xilliyo. meerkurigu waxa uu jiraa dhulka 77 milyan oo kilomitir. meeraha dusaagu wax dayaxa ma leh, sidoo dhulku uu leeyahay dayax u gaara. waxaaba la aaminsan yahay inuu isagu dayax u yahay qorraxda. waxaa meerkuriga ama dusaaga la arki karaa 15 January ilaa 31 January, waxaana laga arki karaa qorrax dhaca dhinaca galbeed. sidoo kale waxaa la arki karaa 28 February ilaa March 20keeda, waxaana laga arki karaa qorrax soo baxa dhinaca bari. 3 May ilaa 24 May waxaa la arki karaa subaxdii, waxaana laga arki karaa dhinaca qorrax soo baxa ee bari. maalintii lama arki karo waayo iftiinka qorraxda ayaa qarinaya. sidaa daraaddeed waa berigii ayaa la arki karaa iyo qorrax dhaca.
waxaanu ka soo muuqdaa meesha qorraxdu ka dhacda iyo meesha ay ka soo baxdo agteeda.